daraasad socotay 75 sano si loo ogaado waxa micnaha u yeelaya nolosheenna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxay tahay sacaadadu? Waa maxay dareenka nolosha farxadda leh? Maxaa naga dhigaya kuwa faraxsan oo ku nool nolol rayn leh? Su'aashaas waxaan uga jawaabaynaa daraasad lagu tilmaamo tan ugu dheer abid ee la sameeyo, laguna ogaado micnaha nolosha. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Waa daraasad 75 sano socotay, laguna sameeyey boqolaal qof si joogto ah, waxaana sameeyey wadana ilaa hadda jaamacadda Harvard kulliyadda cilmu nafsiga. Waa daraasad jiilba jiil ku sii wareejinayay sii wadideeda, waxaana lagu sameeyey 724 nin, waxaana si joogto ah loo weydiin jiray su'aalo kala duwan. Waxaa la baari jiray faylashooda caafimaadka, guryahoodan ayaa loogu imaan jiray. Ku dhowaad qarni dhammaystiran ayaa sidaas lagu waday. 60 ka mid ah raggaas daraasadda lagu sameeyey way nool yihiin ilaa hadda, waxayna weli ka qayb qaadanayaan ku beerinta macluumaad noloshooda daraasadda. Da ahaanna waxay jiraan xilligan 90 ama 90 ayay ka gudbeen. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. Dadkaas daraasadda lagu sameeyey waxay isugu jireen arday jaamacadeed, kuwa ku nool nolol adag ama sabool ah, dhammaan qaybaha kala duwan ee mujtamaca ayay ka soo jeedeen. Ujeedkuna waa ogaanshaha waxa ay tahay nolosha dhadhanka leh. Maxaa nolosheenna ka dhigaya mid micno leh, mid farxad leh, mid xaqiiqi ah, nolol dhab ah? Dabcan, marxaladaha cumriyeed ee dadkaas, marxalad kasta waxay lahayd ujeed iyo wax ay jecel yihiin. Markii dhallinyarada la yahay, qofku wuxuu farxad u arkaa in uu lacag helo, in uu caan noqdo, qof la yaqaano sida fanaaniinta iyo wixii la mid ah. Laakiin kama dhigno farxad iyo nolol micno leh. Haddaba natiijada daraasaddaas 75 sano socotana ilaa hadda ee kumanaanka ka kooban, si loo ogaado waxa ay tahay nolosha farxadda leh iyo waxa nolosheenna ka dhigaya mid sacaado farxad leh, waa kelmado kooban oo laga yaabo in aad la yaabto. Waana xiriir wanaagsan oo dhab ah, xiriir bulsheed oo dhab ah. Haddaba waxa noloshaada ka dhigaya mid farxad leh waa in aad la noolaato hooyada, aabbaha, walaalaha, xaaskaada iyo saaxiibadaada aad jeceshahay, saaxiibada dhabta ah. So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier. Period. Lahaanshiyaha saaxiibo dhab ah oo idinka dhaxaysa nolol qoto dheer. Noloshaada waxa micnaha u yeelayo waa la noolaanshiyaha dad xiriir dhab ah idinka dhaxeeyo. Waana ehelkaada, saaxiibada aad isla soo korteen, saaxiibada dhabta ah ee beenta iyo maslaxadda ka fog. 1 daqiiqo oo aad la noolaato hooyada iyo aabbaha, lana qosasho walaalaha, waxay ka fiican tahay 20 sano ood qurba joogto, xitaa haddii malaayiin lacag aad haysato. Micno ma lahan. Micnuhu waa xiriir wanaagsan oo dhab ah. 75 sano oo baaritaan ah, baaritaan dhab ah oo been iyo khiyaano aanan lahayn. 75 sano oo la is-ag istaagay nolosha 724 qof. 75 sano oo la diiwaan gelinayay wax kasta oo ku saabsan dadkaas. Natiijadu waa, haddaan ku soo celino, xiriir wanaagsan oo dhab ah. Noloshaada waxa micnaha u yeelayo waa xiriirkaada runta ee aad ehelkaada iyo saaxiibada la leedahay, saaxiibada dhabta ah. Sacaadadu lacag ma ahan, farxaddu qurba joogid ma ahan aad ehelkaada ka maqan tahay. Noloshu waa halkaas daqiiqo ee aad la qoslayso cidda aad jeceshahay,
hal ilbiriqsi oo aad la qososho cidda aad jeceshahay waxay u dhigantaa noloshoo dhan. haddaba sirtu waa calaaqaad ijtimaaci dhab ah. subxaan allah, xitaa waxaa la ogaaday in caafimaad ahaan dadka la leh xiriir adag, dadka ay jecel yihiin, in ay ka fiican yihiin caafimaad ahaan dadka aanan ku noolayn nolol ehel iyo saaxiibo dhab ah leh. daraasadda sidoo kale waxaa lagu ogaaday in dadka muhiimadda weyn siiyey xiriirka bulsheed ay dhinac walba noloshooda ka fiican tahay. kuwa sida indhala'aanta wakhtigooda oo dhan u siiyey shaqo iyo howlo adag, hilmaamayna ehelkooda, qaraabadooda iyo bulshada ay la nool yihiin, u nool keliya in ay malaayiin lacaga helaan, hammigoodu keliya yahay lacag iyo adduun, nolol maadi ah. sidoo kale waxaa la ogaaday in dadka gacanta u fidiya dadka kale ay ka nolol wanaagsan yihiin kuwa aanan gacanta u fidinin mujtamaca. caafimaadkaada wuxuu ku jiraa in wixii aad qaban karta aad bulshada u qabato. bal fiiri, rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu saxaabadiisa ku boorin jiray in ay wax uun sameeyaan wanaagga, haba ahaatee dhoollacaddayn ay u dhoollacaddeeyaan qofka walaalkooda. walaalkaas wuxuu noqon karaa kan hooyada iyo aabbaha ay dhaleen, saaxiibka, walaalaha kale ee muslimiinta, mujtamaca qof ka mida. wuxuuna dhihi jiray, waddada oo aad dhagax yar ama qashin ka qaaddo waxayba u dhigantahay inaad sadaqo baxsatay. waana hawl bulshada loo qabtay, taasoo caafimaad ku keenaysa qofka, faa'iidana u mujtamaca iyo bulshada uu la nool yahay. rasuulku aad ayuu u jeclaa asxaabtiisa, wuxuuna ku dadaali jiray wixii farxad gelinayo, faa'iidana u leh aakhira iyo adduun. nasiib xumo, ma naqaana micnaha dhabta ee islaamnimada, jawarka hoose ee islaamnimada, iyo faa'iidada uu u leeyahay mujtamaca iyo wanaajinta xaalkooda. intaas ayaan ku joojinaynaa maanta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.